السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال سو دوادا ورئيسي خاص ayaan la yeelana abwaan Saxane Xuseen oo ah ama kamid aha dhalinyarada hormuudka oo ah dhaqanka aad maartay dhaantooyinkiisa ay Soomaalidu mudooyinkii dambe aad u daawadan ama aad u dhageystaan oo aad waliba caan uga aha gayiga Soomaalida gaar ahaan dalka Kenya magaalada caasimadda Nairobi Garis ama waqooyi bari baan dhahno iyo waliba Soomaaliya gaar ahaan Jubaland abwaan Saxane maanta waxaan ka wareysan doonaa ama wareysigu uu ku qotamaa dabcan dhaqanka Soomaalida meelo fara badan buu galaa maanta waxaan ku soo qaadan doonaa heesaha geela loo qaado kuwa lo'da loo qaado iyo kuwa ariga loo qaado kuwa dameerahana waxaan u malayn inaysan meesha ka marnayn dabcan heesaha geela iyo lo'da iyo ariga marka aan leenahay dad bay uga fadhiyaan magac iyo miisaan weyn uga fadhiyaan gaar ahaan dadka reer miyiga barnaamijyaduna dabcan mar walba hal dhinac ma saaraan diiradda laakiin waxa ay la hadlayaan kuwii magaalada joogay iyo kuwii miyiga joogay xoolo dhaqatahaba way la hadlayaan ugu horreyn marka waxaan rabaa inaan abwaan Saxane soo dhawow dabcan dhaantooyinkan waxaan filayaa aniga aad baan u daawan jiray waliba dadka maartay hadda dhaantooyinka ama dhalinyarada Soomaalida hadda dhaantaysa kuwa ugu codka macaan ugu laxanka macaan ugu muusiga macaan ayaad kamid tahay dhaantooyinka dabcan waxaan filayaa barnaamijyo kale ayaan uga hadli doonaa laakiin maanta barnaamijka midkiisa noo saaran waa heesaha geela lo'da ariga iyo dameeraha u malayna gaal aad kaga dari doonto laakiin waxaan ku hormarina heesaha geela aad iyo aad baa mahadsan tahay mas'alka casi waan dhawahay barnaamijkan aan ku dhawahay waxaan u maleynayaa Soomaalida waxay in badan ugu baratay dhanka dhaantooyinka aad iyo aad dirgaxda أنا ميل ولا استلت أنا ميكروفون كبلجن حرمنا أنا هالكلام أنت وقف هذه سنة هداية دقنك أنت ذيك اليوم ما أدو في بديين وتشيب بدن بديين قيب بدن ويقرب حان ما أنت حرمنا أنا الماشي أنا وهذا الله غير سيدي سبب الكعصو حاله سومالي ذو حنم ملينا يا إن إنسا قيب بدنا كم بدر إن إلا تحاله إن نهلم أدي حاله ورتوه هلا سفي عن حراوي مقلان نينكي راعي نينكي دغلا غران نينكي راعدو iyo ninkii دغلا غران aad iyo aad wala la amaana xola wala la carabiya aad iyo aad inta weelay marka maanta waxaan ugu tala galay qaybta koobaad waxaan ugu tala galay heesta geela aad iyo aad intaan heesta u galin Saxane aad waliga geel ma raacday wali Allah marka heesta geela meesha ka keentay waa geeli aad raaci jirtay bartanka keenay هذه جيله أصله مرة عظيمة معها جيله إلا دبر دوم بنكها إلا مركز مدحوينان كاري أو هذه مركز دوران لقون نقطة دوران لقون نقطة هي سام مركز جيله ملحم بكرليه هن يقاب يسيقين لوك القاضي مسك هل نوع على القاضي جيله هيسيسو لحم بكرليه هذه مد والبلحم بيله سفي عن أنت جار جيل الله هيسمع هذه وبنت طبعا مرة حتى وحاجته لو تشي بيجيل وتجيب له هذه أو أرار هين فريتان هين دال هين دلمتان هين ما يرى سوالك يمشون هذه مركو ما يرى انتو معنا وقت لو تشي هذه marka geel heesihiisa iyo laxankiisu aad u badan yihiin waxa halkan ugu soo koobi karana ma aha waa sababtan u sameeyay barnaamijkan aan rabno maanta inaan qaybta koobaad maanta aan daawayaasha la wadaagno aad iyo aad hadii aad ugu horeyso marka heesta ugu horeysa iyo qaabka maanta ay u dhacayso heesta ugu horeyso iyo xilliga macnaha geela loo qaado xilliga wax walba waxay leedahay xilli iyo waqti aad iyo aad maanta waxay ku aadan tahay heestan waqtiga geelu ama dhalan dhoolka yahay dhalan dhoolka waxaa la dhahaa geelu waqtiga diraacda ama jiilaalka aad iyo aad hadba si Soomaalida u taqaan uu geelu ku jiro aad iyo aad waqtiga dhalan dhoolka uu yahay ee uu ceelka soo galaayo laxankiisa waa mid gaar ah saa hore u sheeg xilliga geela waqti waa dhalan dhool waa waqtiga waa kuleelaha jiilaalka loo yaqaan meel fog ka soo urura ama diraaca Soomaalida u taqaano uu ceelku u socdo ceelku u soo ururo waqtiga dhalan dhoolka waxaa la dhahaa markuu saako kale xiridiisa ka soo dareeray oo maanta casarkii intuu meel xerada xooga korkeeda uu hargalay casarkii la caraaminayo dhalan dhool waqtigaas oo ceelka loo sii wado ceelkiina uu gaaray waqtiga dhalan dhool waa waqtigaas waxaa imaatay waqtiga kamiinta uu kamiinta waxaa la dhahaa marka uu horreyn yahay
horran yahay oo la shubahayo hormadii koowaad ama hormadii labaad ama tii oo uu saddexaad sabadii joogo uu sabadii tuman yahay kaxdiina weli uun istaagin aada iyo aad ee uu horran yahay oo qaybta koowaad iyo qaybta labaad ay tagtay ceelkii oo la shubay intiisa kalena la horayo aada iyo aad waqtigaana yadna waa waxaa la dhahaa kabiin kamiin haa sax waqti kalea jirto waa waqtiga uu sabanhayo ceelka uu fadhiyo ee uu cabay mise cabbay kulligii dhammaantiiba haa cabbay ee qaarna iska fadhiyo qaarna maaragtay Fadhiyo. taagan yahay marka ayadna waxaa la dhahaa sabo marka dhexdeeda ayadna qayb waxaa jirta oo durduur oo durduuranayo aada iyo aad kulligii marka geela intuu kabiinta ka soo gudbo kaxdoo iskugu imaado fadhiisto sabaa la dhahaa sax haa wuu sabanaya markaas kulligii aada iyo aad hal hal baa kiciya marka waa loo heesi halashaa markay kacdo hees gaaray leedahay aada iyo aad durdur baa laa markaa marka intay kacday biyaha soo cabaysaa biyaha hal baa soo cabi hal labaad hal saddexaad tartiib marka- tartiib ay soo kacayaan haa marka waqtigaasoo kale geelu wuxuu leeyahay hees buu leh hees u gaar ah u gaar laxankaa kala duwan midhaha waa la isticmaali karaa laakiin laxanka lagu soo dhaweynaya hasha aada yaa kala duwan yaa kala duwan de markay aada u aman tahay markay Markay- durduurta tahay dabcan isma leh isma leh haa Aad adiga iyo xitaa codkaa waa inuu isbedelo si fiican ilaa markii hore geela oo baad u heysaysa aad iyo aad markana adigoo faraxsan oo geeli uu cabay oo fadhiyo oo saban hayo oo Aad iyo- durduuranayo jawi degan. jawi degan yaad ku heysi marka baad ku heesaysaa si fiican markuu geelu durduuranayo heestiisa aanu horeyno aada iyo aad markuu durduuranayo waxaad leedahay hal casoo dheerey hal casoo dheerey oo candhoolaayey kama curanine kama curanine waa laga cunay waa laga cunay hayaleyay waad leedahay aada iyo aad waa Biyaha laxan ayadoo degan wey laxan degan wey tartiib bay u biyaha cabayaan iyadoon rabin aada iyo aad yaa cabi bay cabaysaa. ila waa loo heysay Aad iyo aad. aada iyo aad marka macnaha hal casoo dheer oo candhoolaa kaama curanine waa lagaa cunay waa laga cunay waa hashad ammaanaysa hashad amaanis la aad iyo hadlaysa aad si fiican geela waxaaba leedahay hal cas oo dheer oo candhoolo ah Aha. kama dhalanin aada iyo aad laakiin lacala hadday jirto waa lagaa cunay ilbaa ku dhacda hashaas aada iyo aad si fiican maba jirta geelada ammaanaysa aada iyo aad marka waxaa kaleeto ka mid a tii mardhicisiyohey tii musenia musa dhariyadayey magaalada tubaney yaa manqixiyoye yaa mindiya tuban yaa midiya toban yaa manqixiyoye Yaa mindiya tuban. yaa mindiya tuban Aad iyo ya uu leeyahay marka halkaas waxaa kasoo baxayso aada iyo aad ragga jooga magaalada sababta wuxuu yidhi tii mardhicisiyo tii museni ah museniya marka waxaa laga wadaa museni waa abeer abeer haa waxaa laga yaabaa ama intay mar oo kaleeto dhiciska sidiisa magacyo badan buu le qayb waxaa jira wax la dhahaa jira qoorjabane waxaa laga yaabaa hashaas musiinida qoorjabane mayn gaarin aada iyo aad way rintay 2 bilood 3 bilood 4 bilood waa mar ay macnaha dabaqaad iyo qabays labada ay kasoo tagto aada iyo aad dabaqaadka waxaa la dhahaa hasha 1 ada bil ama ka yar markay joogto macnaha ay rintaa dabaqaad baa lahaayo aada iyo aad macnaha waxaa laga fahmaa saynta ilaan geelu markuu ramo goojiyo aa u goojiya haa saynta halkaa ma saarayso wax yar bay saadhi waxyar bay saadhi wax yar bay saadhaysaa aada iyo aad dabaqaad baa lahaa marka dabaqaadkaas waxaa ku xigo 1 week kadib ama hal isbuuc kadib waxa la dhaho qabays qabays haa way soo celinaysaa dabaqaadkii hashi uurka ay qaaday aada iyo aad bay soo bay soo celinaysaa celin marka waxaa loo yaqaanaa dabaqaad 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 baa la dhahaa aad baan waa markay dabaqaadka intay dhaafto ay 2 bilood 3 bilood joogto yaa laga yaabaa inay ilmo yar aada iyo oon aad weyneyn oo waxbaba ahayn ay dhiciso inay dhiciso marka inay iska rintaaba la yaabo abeer iska dhahaataba aada iyo oo aad ilaa iska joogto 3 sano 4 sano iyadoo waxba dhalayn aada iyo Haa. aad marka museeni taasaa la dhahaa aada iyo aad marka wuxuu leeyahay tii mardhicisiyo tii museni tii museeniya muse dheriyada muse dhariyada muse dheri waa taanta oman ragga magaalada waagi aan dhaqankii saxda ah soomaaliya hiddii dhaqanka la haystay dee cidna dheriga korkiisa ma istaagi jira waa run maantana habeen dhawitaan lahaa qorqodaha hadduu jiro maantaana aada iyo aad digsiyadii baa saa loo ag fadhiyaa oo gabdhihii maqaaxada aada iyo aad canjela mayag iyo canjeelada iyo rootiga iyo waxbaa saa loo gaaday aada iyo aad marka muse dheri kaasa la dhaha asagana aada iyo aad magaalada tuman minqaxna waad garante waa qosol Aad iyo markii dee nin weyn oo hal macnaha hasha lagu diraya waxaa leeyahay tii mardhicsi tii museeniya musedheriya magaalada tuman yaa minqaxaya umindiyo tuman Aad iyo hasha aad. allah hadle macnaha hana dhicinin waa run hana qabaynin aada iyo aad hana qorjabanaynin ee rin oo caadi u dhal
si ninka musadariga uu kaaga fidaysan macnaha ilaa hadda abeer noqoto kale noqoto magaalada lagin waa la qalani waa la qali si fiican marka macnaha hadalku halkaas ku socda si fiican tii madcusii tii musaniya musadariyada magaalada tuban iyo munqaxiyo iyo mindiyo tuban si fiican masha Allah laysa oo yaa arkin arinta iyada mudanin aad iyo aad hana dhicinin hana qabaynin hana qorjabanaynin si fiican u dhan si uu kaaga faa'iideysan musadariga tusaale ahaan marka oo hadda geeli maartay intuu la waraabiyay aad iyo aad la fulinayo kale ay heesteen loo qaadaa laxankees loogu qaadaa laxanka loo qaadi sidaba durduurta iyo macnaha geela markuu durduuranahay markuu dareerahayo oo intii la waraabiyo oo uu fadhiisto oo sabto oo la durduuro wixii markaa ku xigto waxaa suurtagal in heestu iska yaraato aad iyo aad sababtoo ah danta geela uu lahaa waa danta adiga aad lahaa loo dhamaatay si fiican marka erayada ka mid ee loo sheegay geela inuu biyaha cabo waxaa iyadna ka mid ah durduurta ku jiro maanta waa sabo berri waa socodey saadan bahadaaye xidh sagaaradey sabeeleegtaaye hoobakayloyey baraar leeyahay macnaha maanta waa sabo berri waa socod maanta ceelkii baad joogtaa maanta ceelkii baad joogtaa berrise ma joogtid aad iyo aad oo berri waad sii soconaysaa waxaa la dhahaa waa fulitaan marka waa hees dardaaran waxa waxaa leeyahay biyaha si fiican u qaado aad iyo aad marka maanta waa sabo berri waa socod saa dambe hadda xidh sagaaradu samayn la eg tahay aad iyo aad geeli meeshuu daaqo oo meel agan ah aad iyo aad oo barwaaqo ah oo aad iyo aad barwaaqadiisu loogu talagalay wixii xawayaan oo joogo hadduu biciid noqdo hadduu goodur noqdo wuxuu noqdo hadduu sagaaro noqoto hadday bakaalo noqdaan waa meel laban aad iyo aad oo aad u qurux badan marka halkaasaa tegay biyaha aad iyo aad si fiican u cab si fiican u cab waa qaybta daaranka ka mid aad iyo aad marka geelu markuu saban hayo oo ama durduurta ama sabada uu ku jiro macnaha waa qayb ka mid ah dardaaranka ama heesaha markuu geelu furitaanka yahay oo uu tagana waxaa jira wax la dhaho waxguul aad iyo aad waxguul baa la sababtoo geel waxaa laga yaabaa inuu laba maalmood uu dhalandhal soo aha aad iyo oo ceelku aad uga fogyahay laga yaabaa inuu ceelku u jiro geela 150 kilomitr si fiican waa in uu geela u ahaado oo geel uu soo qaday 18 15 12 ugu yaraan 9 aad iyo aad meeshuna aad u fogto marka geela markaasoo kale geela markay ka fog tahay xeradiis waxguul waxaa suurtagal inuu 2 habeen galo xeradiis uu ka soo arooray aad iyo aad intuusan ceel gaarin aad iyo aad intuu ceelka gaarin sababta waxaa suurtagal geelu markuu soo cabo socodkiisa iska yaraanaya aad looma kaxaynayo marka xeraguul iyo marka waxay kala yihiin ubax macnaa markuu ubaxaye xeraguusha waxay noqonaysaa markuu soo dhalandhoolkay aad iyo aad oo ceelku soo socdo xeraguul baa la xeraguul buu soo gala laakiin markan uu fulahayo waa waxguul oo wuxuu noqonayaa waa geel ubax soo cabay aad iyo aad uu iska ahasaawi oo saqaafi oo iska ma garanaysaa uu iska daaqsan wax dhibo fara weyn oo ma jirto marka halkaa nooga sii wad okay marka la fulinayo marka oo geeli intuu maaragtay cabay xag reerkii xagga usii socdo maxaa loogu eesayaa uga baxayaa geel markuu uga baxayahay saan hore macnaa hore kugu sheegaba waa suurtagal rag horta waa kala geli socday rag waxaa jira mar walba geela iskaga heesa aad iyo aad iska ammaano waxaa suurtagala inuu geelu markuu uga baxayahay badanaa heesa khaas oo fara badan oo loo sameeyo aad iyo aad inaysan jirin sababtoo geelu wuu soo fulay wuu cabay wax ka maqan ma jiro aad iyo aad marka inuu iska fulo oo intuu magaran wadada lagu sii daayo gulu wax uu noqdo uu sii daayo ninka geela la jooga hadduu madaxweynihi ahaaday hadduu macnaha u ahaa dabadhanka in ay dhex socdaan bay u badan tahay aad iyo aad laakiin waa suurtagal ragga qaar oo iska geel jecel yihiin inay u heesaan marka geel jirahana badanaa wuxuu sameeyaa geelu markuu fulo oo ceelka ka dareero aad iyo aad ninka dabadhanka unbaa geela raaco aad iyo aad ninka geela waa haraya ninka geela madaxweynaha waa maqaaxidii ku hadhay maqaaxiduu ku hadhay waxaa laga yaabaa xitaa hadday maqaaxi jiro waqtigii aan geela dabadhanka u ahayn ma jirin maqaaxyo badan aad iyo aad sababta waxaa suurtagala tuulooyinka hadda waddanka aad ugu soo bato inaysan jirin aad iyo aad qayb waxay noqdeen tuulooyinka fasahaada ka mid oo jiritaanka xoolaha iyo geela aad iyo aad aad ugu daran khaasatan geela tuulo iyo magaalo aad bay ugu darantay aad iyo aad waxa ma wadaagaan geela waxaa ku fiican waddan xod ah
ama jaf ah ama dhuugo meel waxaa jirto geela aad loogu dhaqo la dhuugo aad iyo aad iyo duudka biyo madoobi iyo oo geela aad ugu roon marka qofka geela madaxweynaha waxaa suurtagal wuxuu u habo inuu macnaha qabayskiisii dharku xafoojistay iyo aad iyo aad madaxa u xaraar marsaday iyo madaxa xaraar la marsan jiray aad iyo aad si fiican ma garanay ninka dabadhoonka xaraar ma marsado aad iyo aad badana isaga usha loo tuuraa waqti badanba ma haysto laakiin waa mar uu geeli horeeye iyo uu horeeyo maruu sii fulinayo